habeen wanaagsan daawadayaal meel ka soo joogtaan halkan waa channelkeena YouTube-ka shabakada wararka calanka news u diyaar garoobaha wararkeena habeenimo caawa inaad ku daawataan channelkeena waa habeenimo talaada Arbacay soo galayso waana 4 bisha 8 sanadka 2020 daawadayaal caawana wararkeena kuwada ugu waaweyn waxaa kamid noqon doona wararkii ugu dambeeyay ee madaxtooyada Soomaaliya ka helinayaan eegi doona halka uu marayo qorshaha magacaabista wasaaraha Soomaaliya ilaa hadda kulamada madaxweynuhu la qaadanayo iyo wada tashiyada ugu dambeeyay la taliyaasha madaxweynaha la sameeyo shakhsiga ugu cadcad ee xilka wasaaraha loo magacaabayo iyo caawa saq dhexe oo laga yaabo in la magacaabo wasaaraha iyo shakhsiga qof uu noqon karo ayaan warbixin badan kaga haya kulamadii ugu dambeeyay madaxtooyada caawa qodobada kale daawadeel waxaa ka mid noqon doona khilaafkii ka dhex jira aqalka sare baarlamaanka dalka ugu dambeyn xal ayaa laga gaaray waa la xaliyay khilaafkii u dhaxeeyay hogaanka xildhibaanada aqalka sare maanta kulmadooda caadiga iyo dib u bilaabeen si hayaa xilka wasaaraha Soomaaliya waxa uu shir la yeeshay wasiirada iyo waliba xubno kale oo guddiyo ah wuxuuna kala shiray fatahaada iyo COVID-19 go'aanadii soo baxayaan eegi doona diyaarad ay leeyihiin ciidamada Kenya waxay ku burburtay degmada Dooble ee Jubbada Hoose wararkii ugu dambeeyay qasaaraha saraakiil ayaa nolosha lagu leeyahay kubara dhaawacyo halis ayaa soo gaaray sida wax u dhicinayaan eegi doona wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooyo al-shabaab mar hore ay joojiyeen ayaa markan qaab awood ah dhismeed loo bilaabay ciidamada Turkiga ayaa ilaalinaya oo diyaarado dagaal la kor ka waardiyenaya warbixino ku saabsan qayb ay ka yihiin waxa kale oo daawadayaal qayb ka noqda wasiirka maaliyadda shuruudo uu ku xiray bixinta lacagii gurmadka fatahaadaha qaar ka mid ah shacabka ku nool degmooyinka Xamarweyne Xamar Jajab iyo Waabari waxay cabasho ka muujinayaan wadooyinka oo burburay roobka oo burburiyay gaadiidka xamuulka dhinacyo la dhigtay wasiir Goodax amar culus iyo soo saaray madaxweyne Muuse Biixin waxa la sheegay inuu diiday la kulanka safiirka China ee Soomaaliya u jeega qodobadaasi kuba kale ayaa qayb ka noqon doona daawadayaal wararkeena habeenimo ka qayb ka noqon saaxiibada ku xiran channelkeena oo subscribe inoo dhega mareelkana taabo si ay kugu soo dhacaan wararkeena habeenimo saaxiibayaal aan gudagalo warbixinta ugu horeysa caawa ee warkeena xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaa fadhigii ugu horeeyay tan iyo markii khilaaf oo soo kala dhaxgalay hogaanka xubnaha aqalka sare taasoo keentay khilaafka oo saameyn weyn ku yeesho sidoo kalena uu baaqdo fadhiyada baarlamaanka ee aqalka sare ugu dambeeyay aqalka sare ayaa hadda kulamadiisa dib u bilaabay iyadoo xal laga gaaray khilaafka aqalka sare ayaa maanta yeeshay kalfadhigooda afraad waa kulankoodii afraad kalfadhigii toddobaad ajendaha maanta waxa uu ahaa ansixinta xubno ka mid ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka kuwaas oo la horgeeyay baarlamaanka kulankan waxaa soo xadiray 31 xubnood waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka dalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyadoo ay wehelinayay labadiisa ku xigeen 31 cod ayaana cod aqlabiyad la ku meelmariyay haweeney lagu magacaabo Saacadiye Shuuriye oo ka mid noqonaysa xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka oo baarlamaanka hortagtay xubnaha aqalka sare ayaa sharaxday sababaha xubintan lagu soo daray iyo heerarka ay soo martay xubin ka ahayd guddiga oo runtii qof weyn noo ahaa sharci yaqaan ahaa howlo fiicanna noo hayay laakiin markii dambe naga xanuunsaday mudana taani intuu xanuunsanaa ay ku shaqaynayay markii dambena wuxuu ka keenay resignation oo wuxuu arkay inuu aad u xanuunsan yahay una baahday inuu dibadda caafimaad u aado xubintii markay noo banaanaatay wasaaradda arrimaha gudaha xaanshiyaan u qornay oo aan leenahay booskaasaa naga bannaan waxaan rabnaa in naloo soo buuxiyo maxaa yeelay sharciga guddiga doorashooyinka ee law number 4 ah wuxuu qorayaa habka loo qaadanayo xubinta ka mid noqonaysa guddiga doorashooyinka madaxa bannaan inay ka mas'uul tahay wasaaradda arrimaha gudaha waxay Cali Xasan waxay helay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka warbixinta Cali Xasan oo aan ku eegi doono burburka wadada xiriirisa ama wada u dhow madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan wadada buudooyinka degmooyinka Xamarweyne Xamar Jajab iyo Waabari xiriirisa ay dadku cabasho ka muujinayaan sayeshin intaan eegin 5 nin oo kamid ah ururka al-shabaab oo eedeysanayaal ah ayaa maxkamad la soo taagay kuwaas oo maxkamadii ay maanta eedemo loo soo jeediyo kamid ah anshaha al-shabaab maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ayaa maanta waxa la horgeeyay 5 nin oo ku eedeysnaa dil kuwaas oo 3 kamid ah ay ka tirsanayeen ciidamada booliiska ee Jubbaland halka labada kale la sheegay in shabaab ay hayeen
saddexda askari ee lagu soo eedeeyay ee waxaa lagu kala magacaabi jiray yuusuf xuseen xasan, cabdi qani bashiir xasan iyo bile buurow dhaqane, waxayna ku eedeysnaa inay dileen nin xoogsato ahaa. marxuumka la dilay waxaa lagu magacaabi jiray nuur maxamed cabdulle, waxaana maxkamadda ciidamada ay ogaatay markuu ninkaasi geeriyooday kadib maxkamadda la horgeeyay cadeymo muujinaya in saddexdan askari ay ku lug lahayeen. dhinaca kale isla maxkamadda ciidanka qalabka sida xaruntooda magaalada Kismaayo waxay maanta la horgeeyay Faarax Cabdirashiid Cilmi iyo Maxamed Cabdirashiid oo ina ku eedeysnaa kiis kale oo dil ah. labada nin ayaa lagu soo eedeeyay inay horey u dileen marxuum lagu magacaabo Cabdifataax Maxamed Axmed oo kaas oo isna ay ku dileen isla duleedka Kismaayo. garsooraha maxkamadda militariga oo dhageystay maxkamadeenta waliba eedeysanayaashan eedeymaha loo soo jeediyay ayaa uu horgeeyay cadeymo muujinaya waxyaabaha loo haysto. maxkamadda ciidamada qalabka sida ay Jubbaland ayaa marar badan hore sidoo kale xukuno dil ah ku riday qaarkoodna ku fulisay askar Jubbaland ka tirsan kuwaas oo eedeymo kiisas dil ah lagu soo eedeeyay. wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye ayaa dhismaheeda la bilaabay. wadadaas oo waqti hore dhismaheeda la bilaabay hase yeeshee sababo amni ayaa dib loo hakiyay. mar kale ayay wadadaasi dhismaheedu oo dib u bilaabday iyadoo la arkayay gaadiidka iyo waliba kuwa kale ee ka qayb qaadanaya dhismaha wadada laamiga ah ee xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye. waxaa maanta laamiga lagu bilaabay dhismaha wadada laamiga ee xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye oo shaqadeedu ay dib u bilaabatay. wadadan oo muhiim u ah bulshada ku safarta Muqdisho iyo waliba gobolada dalka ayaa bilaabatay bishii July sanadkii hore 2019 hase yeeshee shaqaale Turki ah oo dhisay wadadan ayaa hakad geliyay horaantii sanadkan kadib markii ay bilaawdeen qaraxyo iyo bartilmaameed ay al-shabaab ay ku bartilmaameeyeen shaqaalaha Turkida. mashruuca dhismaha wadadan waxaa ku baxaysa lacag dhan 200 milyan oo qayb ka ah mashruuca dhismaha wadooyinka isku xira caasimadda Soomaaliya iyo waliba magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar oo ay bixinayso qarashkaasi dowladda Qatar. ammaanka wadadan ayaa si aad loo adkeeyay waxaana xitaa ciidamada Turkiga ay ka qayb qaadanayaan sugidda amniga shaqaalahooda sugaya wadadaasi. muddo dhowr bilood oo hakad ku jirtay kadib ayay dhismaha wadadani ay dib u bilaabatay. siyaha xilka wasaaraha Soomaaliya waxa uu shir gudoomiyay shir looga hadlayay wax ka qabashada fatahaadaha iyo COVID-19. warbixintan waxaa eegaya Rijaal Cabdi Maxamed. mudane Mahdi Maxamed Guuleed siyaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka ayaa maanta gudoomiyay shir looga hadlayay ka jawaabida xaaladaha degdega ee dalka ka jira oo ay kamid yihiin fatahaadaha. kulanka ayaa si gaar ah looga hadlay wax ka qabashada fatahaadaha cudurka COVID-19 iyo ayaxa oo kamid ah kuwa xilligan ugu daran ee dhibaatooyinka ku haya Soomaaliya. kulanka intii uu socday waxaa la isla gartay in la sameeyo guddiyo isku dabarida oo ka shaqeeya hawlaha ku xeeran wax ka qabashada arrintaas iyadoo mudnaanta koowaad la siin doono dardargelinta dadaalada looga hortagayo khatartaasi. wasiirka wasaaradda gargaarka siyaha xilka wasaaradda gargaarka ee dowladda Soomaaliya mudane Xamse Saciid Xamse oo shirka faahfaahiyay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal badan ku bixin doonto sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka ay kamid yihiin fatahaadaha. taaki waxaan ka qayb galay shir gudoominayay siyaha ra'iisul wasaaraha waxyaabaha looga hadlay waxay kamid ahaayeen maxaa la yiraahdaa xaaladda waddanka ka jira haduu noqdo COVID-ka ayaxa iyo fatahaadaha. shirkan waxaa kaloo lagu dooday subcommittee la sameyn doono iyo steering committee oo hawshan qaban doono si ugu dhaqso badan si degdeg ah wax waddanka loo qabto xaalada ka jiro emergency ka jiro. waqti waxaan ku jirnaa waqti xaal oo emergency ah marka muddo inaga qaadato laakiin hadda alxamdulillah meel fiican ayuu noo maray hoosh. qorshe waa jira waa laga soo shaqeeyay specifically maxaa saddexda wasaaradood wasaaradda qorsheynta wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaga PO qaabilsan iyo line ministerka oo ayagana ka qayb gal doona steering committee hoosh qaban doona. kulanka maanta ka dhacay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka ayaa ku soo beegmaya xilli xukuumadda xilkaasi haysa ay ku fashilantay bixinta lacag dhan $500,000 oo loogu talagalay shacabka ku dhibaataysan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose kadib markii ay ku xirtay shuruudo ay kamid tahay cabsi ay ka qabto in lacagtaasi la masuqmaasuqo. wararkii ugu dambeeyay waxaan eegaynaa degmada Dhoble ee Jubbada Hoose halkaas shil diyaaradeed ayaa ka dhacay. diyaaradda leedahay ciidamada Kenya ayaa ku burburtay degmada Dhoble ee Jubbada Hoose. Axmed Tifo ayaa eegaya.
ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay iyadoona sidoo kale ay dhaawacmeen ilaa iyo 3 qof oo kale oo dhammaantoodba ahaa howlwadeenadii la socday diyaarad ay leeyihiin ciidamada dalkaasi Kenya oo ku burburtay garoonka diyaaradaha ee degmada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose. diyaaradda waxaa la sheegay in sahay ay u siday ciidamada Kenya ay ku sugan degmadaasi, waxaana la sheegayaa in diyaaradda shilku ay gashay xilli ay doonaysay inay cagadhigato garoonka Dobley. khasaaraha ayaa lagu soo waramayaa in uu yaraa iyadoona loo sababeeyay dadka la socday diyaaradda oo aad u koobnaa. waxaa sidoo kale lagu guuleystay sida wararku ay sheegayaan in la damiyo dab qabsaday diyaaradda oo la soo wariyay in ay dhacday xilli habeen ah, warkaas oo ahayd waqtiga ay shilku diyaaraddu ay dhaceysay. lama oga ilaa hadda rasmi ahaan sababta ka dambeysay in diyaaraddaasi shil ay gasho, waxaana jirin sidoo kale war ka soo baxay saraakiisha ciidamada midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaan kuwa Kenya ee ka howlgala deegaanada Jubbaland. shilalka diyaaradeed ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay u muuqday kuwa kusoo badanaya garoomada diyaaradaha ay ku yaala gudaha Soomaaliya. waxaa xusid mudan in dhawaan diyaarad ay sahay u siday ciidamada dalkaasi Djibouti qaybna ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ay shil ku gashay garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, taas oo markii dambe la sheegay saraakiisha diyaaraddaasi ay ku sheegeen in ay sabab u ahaa dameer soo galay dhabaha diyaaradda ay ku cararaysay waa tan Beledweyne shilka ku gashay, inkastoo markii dambe duqa magaalada Beledweyne uu warkaasi ku tilmaamay mid waxba kama jiraan ah. weli warkeena ayaa saaxiib yaal dhegeysanaysa. qaar ka mid ah dadka ku nool ama shacabka ku nool degmooyinka ka tirsan gobolka Banaadir gaar ahaan waa Bari, Xamar Jajab iyo waliba Xamar Weyne ayaa cabasho ka muujinaya isticmaalka wadadan buundooyinka halkaas oo qayb ka mid ah gaadiidka waaweyn xamuulka la dhigay iyo waliba jaamka iyo burburka wadada oo rababkii ugu dambeeyay burbur xooggan uu sababay. cabasho ay dadka ka muujinayaan waana wado 2 kilomitir u jirta madaxtooyada waana xeendahabka madaxtooyada. wariyana Cali Xasan Cali oo halkaas tagay warbixintan ka diyaariyay. halkan waa wadada Ansaloote ee isku xirtay isgoosida Ceelgaabta iyo suuqa Beerta ee dadka qaarna u yaqaaneen wadada buundooyinka ee degmooyinka Xamar Jajab iyo Waabari. baabuurta ka shaqeysa wadadan iyo bajaajta iyo dadka shacabka ayaa waxay ku qabaan dhibaatooyin fara badan ay ugu badan yihiin burburka wadada ka jiro iyo cariiriga marka qaar ka sameeyaan gaadiidka aadada kada iyo kuwa ka soo baxa ee xamuulka ah. sidoo kale wadadan ayaana waxaa ka jirin taraafik kala hagta gaadiidka ee joogto goobaha mashquul ka jira marka laga reebo isgoyska Umbertoria Ceelgaabta oo ay maraan madaxda oo 2 askari oo taraafika ay joogaan. dadka u socdaalaya shaqooyinka iyo kuwa suuqa Xamar Weyne ka soo adeeganaya ayaa markii ay soo raacaan gaadiidka BLK iyo bajaajta waqti badan waxay ku jiraan wadada mashquul ka jira awgiis. qaar ka mid ah shacabka halkan adeegsada oo aan la dhex qaadno mikrofoonka ayaa waxay ka hadleen dhibaatooyinka ku qabaan wadadan xilliyada qaar ay adeegsanayaan. inta ugu badan hadeertan waa gawaarida waaweyn iyo saxmadooda. culayska ugu weyn wuxuu noogu imaadaa gawaarida waaweyn ayadoo abel wada burbur ay jirtay wadada meeshii yar oo nadiifka ah anaga ka mari lahayn gaari weyn taagan meeshiina god waaye mootada ma ku deyn karno badanaan hadii lagu deeyeen cilada ka imaanayso. caqabada ugu weyn hadeertan waxay naga haystaa gawaarida waaweyn oo haddana taagan meesha nadiifka ah ee la mari lahaa. waxaan ka mid tahay ardayda iskuulka sare dhigata dugsiga marka wadadan dhibaatooyin fara badan ay ku qabnaa gaar ahaan marka BLK camal la soo raaco gawaarida waaweyn ee degdeggalaya inta badan wadada xirto waxaan u badan tahay maalmaha Talaadada iyo Arbacada oo kala wadooyinka dhan jaam ay naqanayaan baawarada gawaarida xiraa marka waaweynka oo degdeggalaan. waxaa dhibaatooyin ku naqaysaba inaa suuq beertii la hlaan ku imaad waqti badan ay ku qaadanaysaa halkii mar hore waqti fudud ku maajin iskuulkana aadi jirin marka caqabado weyn meeshaas ay haystaa dhanka wadada. maasha Allah burburka wadada hadaa ka hadla saameyn weyn ay leedahay maxaa yeelay gaari marka soo raacdi wadada biyo fadhiyo hadan jidkiyo xiran wadada hadan waa jawantaa biyo fadhiyo marka gaari way ku adagtahay inuu meesha soo gudbo marka qaar waxa umalaysaa adoo iskuulkii orday inuu gaari marka wadada jaban oo maray inuu ku adana biyo ka dhiyo hadan guri u laabato oo ku qasbay oo dharka iska soo bedesho intaas waxa weynaysaa xisada iskuulka aadileed waqti far badan ay ku qaadanaysaa marka saa burburka oo jira wadada. burburkan iyo zaxmadan iyo cariirigan aniga waxaan qabaa waxa u sababa shalay ugu soo kaysay meel aan maraan waay aniga nafsaanteeda. waxaan ka imid Xamar Weyne waxaan rabay inaan soo aado Afsioni
waxaa qarax ka dhacay degada agaaraheeda intoo waxaan soo galay zaxmo cariiri waa ka naqday xaggaan maray waa ka sii darneed danta waxay ugu kaliftay inaan ka soo wareego kor marka ayadoo awalba dhibaato aan ku qabnay tareerada ii sheeg baabuurtan waaweynka oo maalintii oo dhan meel laga maro oo la waaye haddana qarax dhacay dhibku wuu sii batay marka waxaan qabaa aniga cariirigii waxaa noo keenayo burburkan waxaa waaye waa iska jiraa magaalada waxaa waaye marka saas iyadoo ay tahay haddii waddankeena uu noo toosi lahaa uu israaci lahaa cariirigan iyo burburkaani waa ka qabsan lahayn waxaan hadda ugu qabsan la'nahay weli dowladdii aan weli aan awood lahayn baabuurtan waaweynkana caalamka waxaa loogu talagalay inay habeenkii socdaan sidoodaba ma fahamte marka haddii oo sida maaragtay caalamka aan la jaan qaadno habeenkii tareelada la fasaxo waxaan qabaa saxmad inay yaraanayso iyo cariiriga wadadan ayaa horay waxaa u dhisay maamulkii uu hogaaminayay gudoomiyihii hore gobolka banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Madaale balse dib ayuu burburtay sidoo kale waxaa jiray amar uu hore u soo saaray maamulkii uu hogaaminayay gudoomiyihii hore gobolka banaadir Taabi Cabdi Maxamed ka oo ahaa in gaadiidka xamuulka ah ee aadada kadib Muqdisho aysan shaqeynin xilliyada maalintii ah balse ay shaqeeyaan xilliyada habeenkii ah laga bilaabo 12 maqribnimo ilaa 12 subaxnimo balse amarkaas ayaa burburay markii xilka laga qaaday gudoomiyahaasi وهجاك ورينا علي حسن علي يكاسيها وربحينتنا موقال عنها دقيسير وحنا نجح حسوسنا إنها تكدا وكرتان برتينا فيسبوك عن كلنا هاي فيسبوك / راديو رسالة ويا وركنا كلنا محا كهر أن إيجا مدحونها سومالا مصبيحي وحال الشيء إنه ديري لكلن كسفير كتشينا سوماليا وتشيجا محا عبد الرحمن يا دمستريا safiirka dalka Shiinaha u fadhiya magaalada Muqdisho Danjira Qiinjaan oo labadii maalmoodii ugu dambeysay ku sugnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ayaa la sheegay inuusan weli la kulmin madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi Danjira Jaan oo hogaaminaya diblomaasiyiin ka tirsan safaaradiisa Muqdisho ayaa sabtidii socdaal ku tagay magaalada Hargeysa si Somaliland uga hadlo xiriirka cusub ee Somaliland iyo Taiwan dhexmaray oo uu safiirku si kullo cambaareeyay hase yeeshee Danjira Jaan ayaa saddexdii maalmoodii ugu horeysay Hargeysa uu joogay aan la kulmin madaxweyne Muuse Biixi waxaana safiirka qaabilay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Somaliland iyadoo oo wasiirka arrimaha dibadda uu dalka uu ka maqan yahay ee Somaliland si rasmi ah looma garanayo sababta keentay in safiirku uu arki waayo madaxweyne Muuse Biixi laakiinse waxaa la rumaysan yahay in dowladda Shiinaha ay doonayso inay Somaliland ay weydiisato in ay ka baxdo xiriirka cusub ee Taiwan ay la saxeexatay dowladda Shiinaha ayaa si weyn uga hortimid una cambaareysay bilowga xiriirka Somaliland iyo Taiwan oo ay gaareen kaasi oo gaaray heerka ah in ay wakiilo isweydaarsadaan labada dhinac wakiilka ay Taiwan u soo magacaabatay Somaliland ayaa ku sugan Hargeysa iyada oo la filayo in wakiilka Somaliland ay u soo magacaabatay Taiwan dhawaan uu amba bixi doono Taiwan warkiina caawana geyntaas